Ma taqaanaa waxa dadka intooda badan ka hor taagan inay noloshooda tijaabiyaan waxyaabo cusub aysan hore u aqoonin? Ma taqaanaa sababta ugu weyn ee dadku ugu fashilmaan inaysan gaari karin fiiqa sare ee horumarka iyo guulaha waaweyn ee noloshooda? Haddaba halkan aad u jeedaan waxaa lagu magacaabaa aagga raaxada. Waa aagga ama meesha ay dadku intooda badan ay jecel yihiin inay ku nagaadaan ama ay ku bixiyaan waqtigooda intiisa badan, iyagoo isku qanciya inay ku jiraan raaxo iyo ammaan joogto ah ay naftoodu dareemayso. Aagga raaxada waa cadowga koowaad ee qofka ka hor taagan inuu noloshiisa guulo waaweyn uu ka gaaro. Waa waxa qofka ka dhiga inuu ahaado qof daciif ah oo aanan waxba qabsan karin noloshiisa. Aagga raaxada waa rootiinkaaga, waa caadooyinkaaga gaarka ee aad maalin walba sida joogtada u qabato oo aad ku celceliso adigoonan wax isbeddel ah samaynin. Aaggaaga raaxada waa saaxiibada aad waqtigaaga inta badan la qaadato. Waa meelaha iyo goobahaad jeceshahay inaad mar walba iska joogto oo aadan ka ahaan karin inaad meel kalena ka aado. Waa waxyaabaha aad ka hesho oo aad jeceshahay inaad samayso mar walba. Waxaad ka heshaa inaad 24 saac moobilkaaga aad ku foorarto. Waxaad ka heshaa inaad maalinkii 4 musalsal aad daawato. Waxaad waqtigaaga oo dhan ku lumisaa inaad iska qiisho oo aad iskaga dhex jirto xeyndaabka raaxada. U fiirso, waxaanoo idil waa caadooyin ay si gaar ah u samaysteen dadka oo aysan rabin meelna inay uga baxaan caadooyinkan. Waxaad ku garan kartaa qofka ku sugan aaggan raaxada ma rabo inuu wax cusub uu barto noloshiisa ama uu tijaabiyo. Ma rabo inuu cilaaqaad iyo xiriir badan uu la sameeyo dadyow kala duwan. Mana jecla badanaa inuu tago ama uu u safro goobo kala duwan. Waana qof jaahil ka ah naftiisa oo aanan waxba ka aqoonin shakhsiyaddiisa iyo qofka dhabta uu yahay. Mar walba waa midaan rabin inuu ka dhex baxo aaggiisa raaxada iyo ammaanka uu ku jiro. Tusaale ka soo qaad, wuxuu jecel yahay inuu si fiican u barto luqadda Ingiliishka, haddana sidaas ay tahay ma xaqiijin karo inuu gaaro rabitaankiisa. Sababtuna waxay tahay ma oggola inuu wax dhiba uu u maro barashada uu jecel yahay luqadda Ingiliishka. Sidaas daraaddeed waa mid ku fashilmay inuu xaqiijiyo hadafkiisa, isagoona wax walba ka doorbida inuusan ka dhex bixin aaggiisa raaxada. Waa qof ay xadidan tahay mar walba awoodihiisa gaarka ah uu wax ku samaysan karo. Imise goor ayaad naftaada ku tiraahdaa, low aan ogaan lahaa mar hore waxaan hadda ogahay, waxay nolosheedu ahaan lahayd mid tan ka wanaagsan. Haddaba waa inaadan hadda ka shalaynin inaad ku noolaato nolol fashil iyo dibudhac kugu ah. Isku day inaad ka baxdo aagga raaxada aad ku jirto. U istaag inaad samayso waxyaabo aadan horey u samaynin noloshaada. U kac oo u dhaqaaq inaad wax cusub barato oo aad garaadkaaga koriso. U tillaabso aagga dhibka iyo rafaadka u yaalo. Kaas ayaa ah waddada dhabta ee guusha, farxadda iyo qanacsanaanta naftaada. Waxaad ogaataa inaysan noloshu marnaba aysan aqbalin wax la yiraahdo raaxo iyo iska ciyaar, balse waxay noloshu aqbashaa dadaal lagu daray khibrad iyo tijaabo. Ma ogtahay in subax walba aan soo kacno ay noola mid tahay sidii inagoo ku jirna furinta hore ee dagaalka? Waana hardan iyo dagaal u dhexeeya ama inaad ku guulaysato iyo ama inaad ku fashilanto noloshaada. Guushuna waxay kuu soo dhadhamaysaa markii aad meel iska dhigto cabsida iyo raaxada. Cabsida aad ka baqayso inaad shay cusub barato waa isla cabsidaas midda kaa dhigaysa inaad xabsi ugu jirto aagga raaxada iyo horumar la'aanta. Waxayna kugu noqon kartaa cabsidaas haddaadan ka adkaanin mid burburisa dhammaan riyooyinka noloshaada. Soomaadan arag dad ka baqa inay dadka hortooda ay hadallo ka soo jeediyaan balse haddana aysan awoodi karin. Sooma arag dadka cuna qaadka inay jecel yihiin inay iska daayaan qaadka haddana aysan awoodi karin. Haddaba waxaad ogaataa waxa dadka ka hor taagan inaysan waxba ka beddeli karin caadooyinkooda gaarka ah inay tahay cabsida. Beddel caadooyinka kaa dhigi kara inaad sii ahaato mid fadhiid ah oo aanan waxba qabsan karin. Waana inaad xasuusataa inaysan noloshu marnaba aysan aqbalin
wax la yiraahdo raaxo iyo iska ciyaar ciyaar. Mowduucina maantana intaas ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum.